waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta aan joogno 2025 taariikhda European taariikhda Ethiopia 2017 aanu joogno magaala madaxda degmada Baabil ee Dandame tartanka ugu khayrka badan ama ugu sharafta badan ee dhagahaygu maqlaan oo Quraanka Kariimka oo lagu tartamo 3 qaybood 30 juz 20 iyo 10 ilaahay nagu simay inaan ka soo qayb galo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku salaamayaa dhammaan xubnihii ka soo qayb galay heerarkooda kala duwan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waad ogtihiin dadkiina hore dadkan dambe hadda dhashay ee nabadda iyo xasiloonida ku dhex dhashay mooyaan in meeshan 3-4 jeer dagaaladii ka dhacay 2 jeerna ay ku gubatay in ka badanna dad badani uu ku dhintay maanta halkeenu maraynaa alxamdulillaah falillaahi alxamd maanta waxaanu maraynaa in lagu tartamo quraanka kariimka xasilooni iyo deganaanshiyo waxay keentay inaanu ahaano ummadii muslimka ahayd ee wixii lagu yaqiinay lagu dhalay ka ab dib ugu noqotay oo diinteeda barata xafida jazaakumullahu khayran Sheikh Ismaaciil Shaam wuxuu ahaa xidiga islaamka ee degmada Baabili gaar ahaan gobolka Faafan deegaanka Soomaalida waxaan xasuustaa qaariga weyn ee Soomaaliyeed Sheikh Cabdirashiid Sheikh Ali Suufi muddo waxoogaa aan wada fadhinay wuxuu yiri waxaan ku tamaniyayaa anigoo jooga Qadar in ubadka aan dhalay aan keeno cobasha waxaan ka urinayaa marka aan barigan Itoobiya soo galo saxan saxada diinta islaamka roobku markuu casarka soo kacayo inaad ogtiin in kale ma ogiye udgoon baa hor socda saxan saxo sidaas oo kale saxan saxada diinta islaamka ayaan ka urinayaa buuri meeshaas nimuu ilaahay ubad siiyay ee deegaanka ku nool waxaan kula talinayaa buuri inuu halkaas ubadkiisa geeyo dejiyo Allahu akbar mar labaad maanta waxaanu joognaa magaala madaxdiiyo maalintii koobaad tartankii ama maalintii labaad lagu qabanayo uu isagu hogaaminayo ardaydaas imtixaanka natiijooyinka heerarka ay kala gaadheen inuu kala saaro alxamdulilaahi rabbil caalamiin halgankeennii iyo rafaadkii aan soo maray intuu dadku xoolaha iyo hantida ku rafaadaya annaguna aan dadkan dhaqitaankoodii ku rafaadaynay maanta midhihiisii baa noo muuqda waanan ku faraxsannahay iskuulka maadiga ah sidaa uu gudoomiyuhu sheegay 1987 bishii 10aad 3 dawaabeen ku bilownay ardaydii ugu horeysay Axmed Nuur macallinkii away macallin Axmed Nuur waxaanu ku bilownay intaan tamaashiir weynay wax la yiraahdo dhuxul in loogu qoro ardayda loox yar intaanu sameyn ardaydii halka ka bilowday alxamdulillaah falillaahi alxamdu maadi maanta professor Cabdisalaam Cabdullaahi Maxamed inuu xafladan abaabulkeeda iyo hanti ku bixinta iyo maskax ku bixinta uu qayb libaax ka qaato wax lagu farxo weeye ma aha waxbarashadu tu dadka leexisay kharibta waa tu dadka dhista ee toosisa dadka ku mashquulay Facebook iyo wax sheegida iyo wax cambaaraynta iyo wax eebaynta waxaan u soo jeedinayaa anigoo ku hadlaya afkii dhaqanka inay ka waantoobaan oo jidkii toosnaaye raggii lagu dayan lahaa sida Sheikh Ismaaciil Shaam iyo Professor Cabdisalaam Cabdullaahi oo kale ay mareen ay u maraan dhalinyarada hadda wax baranaysa diin iyo maadiba ku jirto marka sidaas darteed waxaan saaka aad ugu faraxsanahay halgamayaashii naga horeeyay sida Ali Sheikh Maxamed Ismaaciil Axmed Sheikh Aadan Maxamed Ali iyo annagii ku xignay in maanta ilaahay halgankeennii wax ka mid ah uu na tuso oon soo gaadhno aragno ilaahay intii noo hadhayna cimriga ha noo ziyaadiyo si aan u gaadhno iyagoo maanta intan 3 jibaar ama 4 jibaarkooda oon dhagaysano qiraadoodii aan ku raaxaysano dhagaheennu ay maqlaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baad u mahadsantihiin